Assalaamu calaykum akhyaarta sida tooska hawada nogula socdo ku soo dhawaada war waxaan ka haynay Soomaalida iyo caalamka kale halkani daawadayaal waa hagaagta TV fadlan daawade hadaad ku cusub tahay channelka subscribe saar share oo la wadaag asxaabtaada iyo eheladaada doonaya wararka noocan like saar si uu meel fog u gaaro waad ku maasan tahay la joogaaga kamid ahaanshaha aad ka mid noqotay asxaabta nagu xiran madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ceebtii abid u weyn loo soo jeediyay labada aqal ee dawladda federaalka Soomaaliya oo fadhi wada jira isugu yimi Siciidani oo la jahwareersan eedaha loo soo jeediyay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble oo iska caabinaya eedaha dhankiisa loo soo duwayo dhalinyaro hubaysan oo habeenkii xalay ahaa laga qabqabtay xaafado kamid ah Dharkeynley wararka dibaddana waxa ugu waaweyn Finland oo isla ururka NATO ka mid noqoya cabsi weyn oo laga qabo ku biirista ururkaasi militariga bariga Afrika oo caasimadda Itoobiya shir ku yeeshay akhyaartaydan jecelnahay intaasi waa qodobada warka iyaga ugu doorka roo nimankii haatan u diyaar garooba qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan sidaad hordhaca warka iyaga ku maqlaysay madaxad ballaaran ayaa soo gaadhay madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo taasoo beesha caalamku ku eedeysay inuu musuqmaasuqay dhamaan hantidii dalka iyo deeqihii dibadda waxaana u soo jeediyeen inuu qabto doorashada si degdeg ah waxay kaloo sheegeen in maxkamad la soo taago isaga iyo xukuumaddiisa markay doorashada qabtaan kadib gaasta kale waxay Ra'iisul Wasaare Roble ku amaaneen si uu uga soo horjeestay xukuumadda gacan ku dhiglaha ee cid ay aragtaba dilanaysa wax kasta maaliyadda musuqmaasuqaysa beesha caalamku waxay Farmaajo soo jeedisay inuu si xasiloon doorashada kadib uu ku wareejiyo mas'uulka loo soo magacaabo ee hogaaminaya dalka afarta sano ee soo socota iyagoo ku canaantay inuu Farmaajo yahay dil dayace dadkiisa u liitaan gaajo oo macluul iyo abaar baahsan kale Ra'iisul Wasaare Roble waxa uu soo jeediyay inuu isu sharaxo xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si ummadda ugu horseedo nolol barwaaqo nabad iyo horumar ballaaran oo geeska Afrika caalamka laga dareemo canaantan beesha caalamku waxay timi xilli Ra'iisul Wasaare Roble iyo madaxweynaha Farmaajo xoguftan siyaasadeed uu ka dhaxeeyo oo midba kale ka caarsanayo sharafta iyo cirdiga ee basiyay Ra'iisul Wasaare Roble oo la tuhunsan yahay in haddii uu sharaxo inuu xildhibaano taabacsan isaga u codayn doonaan iyo haddana looga sheekiyay inuu haysto xildhibaano qarsoon oo beesha hawiye ka soo jeeda labada gole dawladda federaalka Soomaaliya ayaa yeeshay fadhi ay ku midaysan yihiin labada gole kulanka oo ka dhacay hoyga Villa Hargeysa ee Muqdisho qaar kamid ah hay'adaha sharci dejinta ayaa warbaahinta u sheegay in xeerkan lagu qabanayo jadwalka doorashada guddoonka labada gole oo la saadaalinayo in bishan gudaheeda lagu qabto si aan waqti badan loo dayicin iyadoo cadaadis xooggan ay ka hayso beesha caalamka haddana bishan sidoo qorshuhu yahay waxa la qaban doonaa doorashada Abriil dhexdeeda la dooran doono guddoonka labada aqal waxa yaraan doona cabsidii laga qabay in bartamaha bisha soo fool kale in Soomaaliya laga jarto daqiiqii dhaqaale ee caalamku siin jiray Soomaaliya iyo in shaki weyn galo habkii deen bixinta Soomaaliya ee caalamku ku lahaa Soomaaliya geesta kale beesha caalamku waxay wacd ku martay in haddii doorashadu dhici weyso ama mas'uul kale dalka loo magacaabin inay deyntii Soomaaliya lagu lahaa dib u soo caarido si taa looga hortago waa in baa la yiri doorashada la qabtaa oo la bedelaa maamulka hadda dalka ka jira madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo hore u sheegay inuu sharaxayo xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa jawaab culus ka helay Imaaraadka oo ku eedeeyay inaan u qalmin jagada madaxweyne ee dawladda federaalka iyagoo sheegay inuu ka adkaan waayay xilka maamul goboleedka Puntland iyagoo sheegay inuu ka curiyay Puntland intuu haystay dagaalo beelad lagu hoobtay iyo in Puntland lagu dilay madaxii u sareeyay shirkadda DP World oo ah shirkad maalgashada dekedaha dalalka soo koraya sidoo kale waxa tusaale u soo qaateen Somaliland oo wax ka yar 70 kiiloomitir u jirta Puntland iyagoo sheegay doorka wanaagsan ee Somaliland ka qaadatay in loo hormariyo dekedaha Somaliland iyo dalkaba inay si amniya ugu damaashadaan shacabka reer Somaliland waxa uu soo jeediyeen Deni inaanu isu sharaxin xilka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya si aanu u mijahaabin dalka iyo dadka reer Soomaaliya waxay ugu baaqeen Deni inuu ka feejignaado waxyaalaha siyaasaddiisa khalkhal gelinaya waxaana ku baraarujiyeen inuu siyaasadda dib u bilaabo barashadeeda oo kores labaad uu ka diyaariyo facultigaas Siciidani oo la tacaalaya weeraha kulkulule ee Imaaraadka ka imaanaya waxa uu iska dhaga marinaya oo marba wada ayuu jeexayaa Siciidani Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa iska difaacay eedo uga yimid dawladda madaxweynaha iyo xulafadiisa
isagoo fariin adag u diray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuna wargeliyay inay doorashadu dhacayso waxaanu sheegay in dalku u baahan yahay horumar waxqabad nabad barwaaqo iyo baahiyaha aasaasiga ee bulshada in la daboolo haddaba maalmihii u dambeeyay waxa urguf dagaal hooseed ka dhaxeeyay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaare Roble oo hadda meeshii u xumeyn maraya dagaalka siyaasadeed ee ka dhaxeeya ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweynaha muddaxileedkiisu dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dowladda Soomaaliya ayaa jawaab degdeg ah ka bixisay cabasho muddooyinkii la soo dhaafay ka soo yeedhay dadka shacabka ee ku nool xaafado ka mid ah degmada Dharkiinley kuwaas oo ka cabanayay dhalinyaro koox cusub haystay oo ciyaar weeraro ah iyagoo dadka dhaacaya dilaya haweenkana kufsanaya gaadiidka iyo guryahana burburinaya maamulka degmada Dharkiinley iyo taliskooda booliska oo si wada jir ah ayaa xalay howlgal ballaaran ka sameeyay xaafadaha degmadaasi iyagoo gacanta ku soo dhigay dhalinyaro badan oo la isugu geeyay barxadda weyn ee saldhigga galbeed halkaas oo isku shaandhayn kadib xabsiga la dhigay qaar ka mid ah dhalinyarada ciyaal weerarada iyo hogaankooda oo qaarkood xilligaasi ku hubaysan baangado iyo mindiyo taliyaha booliska degmada Dharkiinley Macallin Aadan ayaa warbaahinta u sheegay inaysan u dulqaadan doonin dhibaatada iyo dhalinyaradaasi dadka shacabka ku hayaan oo waalidiinta dhalay uga digay inay ilmahooda marmarsiyo aan waxba ka jirin u raadiyaan marka saldhigyada lagu xidho haddii cunugaaga oo gacanta lagu hayo ka daba imaato oo tiraahdo kama tirsanayn waa inkiraad ama difaaceed haddaad qiraysaa la mid ah haddaad soo sheegi weyso ayaa la mid ah haddaad wax ka qaban weydo ayaa la mid ah ayuu yidhi taliye Aadan dhankiisa gudoomiyaha degmada Dharkiinley Guhaad Sheekh Xasan Cali ayaa sheegay inay wadi doonaan howlgalkooda ka dhanka ciyaal weerarada isagoona dhinaca kale fariin u diray waalidiinta ku dhaqan degmada Dharkiinley si ay gacan uga siin lahaayeen maamulka ka hortaga dhalinyarada dhibaatada ku haysa bulshada dowladda Finland wax damaanad qaad ah kama helin Mareykanka ama NATO ka hor inta aysan gudbin codsigooda NATO ee suurtagelin kara kamid ahaanshahooda sidaas waxa sheegay ila wareede ka tirsan dowladda Sweden oo la hadlay saxaafadda maxalliga ilaha ayaa sidoo kale xaqiijinaya inta lagu guda jiro gudbinta codsiga iyo kamid noqoshada xubinnimada buuxda ee NATO ayaa waxa lagu muujinayaa cabsi dhanka ammaanka si kastaba ha ahaatee ila wareedyahan ayaa meesha ka saarin in nooc ka mid ah damaanad qaadka amniga uu imaan karo hadhow inta lagu jiro habgudbinta codsiga si kastaba ha ahaatee waxa loo arkaa baa la yidhi inaanay suurtagal ahaan inay damaanad qaadyada noocaasi ay ku xidhnaan karaan kiiskaas labada dal ee Sweden iyo Finland ayaa hadda haysta aqlabiyadda ku biirsida isbahaysiga sida ay muujinayso ra'yi ururin dhawaan la sameeyay laakiin xubinnimada NATO waxay ka caarisin doontaa baa la yidhi Moscow taasoo ka soo horjeeda ballaarinta isbahaysiga ee agagaarkooda arrinta damaanad qaadka amniga ayaa loo arkay inay muhiim tahay dooda NATO ee Finland hay'adaha sirdoonka militariga ee bariga Afrika ayaa shir ku yeeshay caasimadda dalka Ethiopia Addis Ababa halkaas oo ay kaga wada tashanayeen ammaanka gobolka argagixisada iyo arrimo kale shirkan oo kaga soo qayb galeen dalalka Ethiopia, Djibouti, Suudaan, South Sudan, Soomaaliya, Tanzania iyo Uganda ayaa waxay carabka ku adkeeyeen baahida loo qabo feejignaanta joogtada ah iyo dadaalada wadajirka ee wadamada gobolka si loola dagaalamo caqabadaha amniga sida lagu sheegay war qoraal oo ay xadii soo saartay wasaaradda gaashaandhigga Ethiopia hay'adaha militarigu waxay saxeexeen heshiis isafgarad ah oo si wadajir ah loola dagaalamo argagixisada iyo ka hortagga xoogagga nabaddiidka ah ee khatarta ku ah nabadda iyo ammaanka gobolka dhanka kale hay'adaha sirdoonka militariga ayaa isku raacay in si wadajir ah looga wada shaqeeyo amniga xuduudaha amniga internetka baraha bulshada ilaalinta deegaanka iyo shaqo la'aanta dhalinyarada iyo kuwa kale si loo abuuro Afrika nabad iyo amni ah akhyaarta aan jecelnahay intaasi waxaan ku soo gabagabaynaynaa war waxaan ka haynay dalka gudihiisa dibadiisa daafaca caalamka iyo darafyada Soomaalida halkani daawada waa Hagaagta TV tan iyo kulanti dambe nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh